مسؤولينta dowladda hoose ee degmada Burco oo horkacayo maayirka degmada Burco mudane Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi maayirka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa saaka kormeer ku tagay xabaalaha Tuule ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxayna si rasmi ah u shaaciyeen in laga raray dadweynihii ku ganacsan jiray xabaalahaasi ugu horeyntiiba waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco maayirka xigeenka degmada Burco iyagoo u mahad celiyay dadweynaha xaafadaasi waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan maanta joognaa xabaalihii qadiimka ee gobolka Togdheer dadkeedu ku wada jireen dadkii macruufka ahaa ee la wada garanay ehlu karamka ahaa intii ka harsanayd oo hawlgal ku galay shalay oo runtii mudan in qof kasto reer Burcaahi uu ku xamdi noqo oo ku shukri noqo iyadoo dadkeenii meeytida ahaa ee asraac ahaa halka ay ku jireen ay noqotay goob ganacsi maamul ahaan waxaanu garanay in aanu banayno oo ixtiraamkooda iyo mudnaantooda siino waxaanu ballan qaadeynaa in meesha xabaalaha saan u banaynay inaan ka hadhaynin in geelkeen lagu xigayo meel kasta xabaalahana hawshaas ka soconayso ilaahay kariim weynaga xabaale ka gurna maanta insha Allah roobku way noo daaya saddexda qof ee ka muuqda waxaan leenahay degdeg uga guura yaan xabaalaha la idinku dul marino geelka la idinku dul marino idaas xabal qumur noqonne ka guura baan leenahay dadkii ka guurana waa u mahadnaqaynaa Sheekh Ibrahim Kaboole muddo dhowr iyo 20 sanadooda dad baa ku dulbaya mushtareynayay oo xabaalaha dul degay oo risa ka deeyay nasiibana waxaanu maanta ku guuleysanay inay dadkii xabaalaha dul degay iska guuraan reer Burco saaka qofka soo sheega 30 xabaalood oo meel ku wada jira markaati baa ka wada tiin xabaalihii muddadii aan joognay gobolkan meel aan deernayni oo qoful lahayn saaka ugu dambeyntii waxa hadalka iska daba qaatay duqa degmada Burco sidoo kale gudoomiyaha gobolkan Togdheer iyagoona shaaciyay inay deerku walaajin doonaan xabaalahani waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha halkan degana oo ugu horeeyo Mustafa Xasan Nuur oo hoos fadhiya Mustafa Uriyaan oo gacan weyn ka qaatay meeshan xabaalaha sidii loo guuri lahaa xabaalihii Burco oo jirdo waa soo dhameyn xabaalo loo oran karo maanta waa xabaalo oo ma dayra ma jiraan xabaalihii Burco ee lala geli jiray khamriga ee lala geli jiray xabagta ee lala geli jiray kaadida iyo xaarka ee habeenkiis la joogto fadhiyi jirtay waxaas oo dhanba ee dhulka laga dhigtay la degay dhammaan waan soo wadir taas ugu dambaysa dhiskii baa inoo hadhay dhiskana sabtida hadii ilaahay ka dhigo waa qaydin wixii ka dambeeyana waa bulkeed albaab yar oo laga galo baa loo sameyn doona inta kale waa la soo deeriyo waa la xiray wajahadan markaanu xidhno xagga dambena hadda waa wareegayna hadda rag baa isla malaynta baa la xiraya xagga dambena waa loo wareegay waa u sii sheegaya dadka xagga dambe deganowna kuwanu baa la mid tihiin ka sii guura runtii waa wax weeyaan waa wax aad looga xumaado in meeshii nooca ahayd inta la dul dego waliba lagu dul ganacsado laakiin maanta hadii ay banaanaatay oo aynu aqligeeni shaqeeyay oo aynu garanay cid inooga baahan waxtar maanta inay yihiin dadka xabaalaha ku jira oo xukuumad iyo shacab aynu isla garanay inaynu banayno waxa weeyaan tallaabo horumar oo aynu gaadhnay waxaan jecelahay halkan dadweynaha reer Burco uga diro baaqan leeyahay cidii xabaala degani waa inay ka fogaataa xabaaluhu waxay inooga baahan yihiin oo kaliya dadka asxaabul qubuurka inaan faatixada u marro in ilaahay dambiyadooda dhaafo si inaguna markaaynu ka daba tagno aan de xabaasheena loo degin maanta aanu anagu joognaa xabaalihii Sheekh Ibrahim Kaboole iyadoo aanu banaynay aniguna aan ahaa qofkii ugu badnaa xabaalaha inta ugu badan kii haystay aan ahaa ee kiraysanayay aan kana tanaasulay dibna aan uga laabtay Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.